madaxweynuhu in uu la yimaado xal dhab ah mar haddii arrintani ay miiskiisa saaran tahay waa sida uu hadalka u dhigay hogaamiyaha oo arrimahan iyo arrimo kale ka hadlaya waxaa hadaladiisii ka mid ahaa waxaan maanta doonaynaa halkan idinku yeedhnay inaanu halkan ka marino qodobo muhiim ah oo ay ugu horeyso komishinka jooga hadda ee 6 xubnooda iyo xubinta aan la ansixin oo muddo hadal ka socday oo horena halkan labada oday maalintii ka hadlayeen ay u jeediyeen inay codsi ama soo jeedin u jeediyeen inay baneeyaan maadaama oo muran hareeyay intii ay joogeen ba muran hareeyay oo ay taagnayd arintii doorashada oo iyaga wax niban tahay oo xisbiyadii iyaga aan isla fahmin waxaan mar labaad ku celinaynaa oo leenahay xubnaha komishinka ee maanta joogay 6 iyo xubintii wadani aan la dhaarin ama la ansixin todobadoodaba waxaan ugu baaqaynaa inay iscasilaan inay baneeyaan xafiiska iyagoo danta qaranka eegaya waxaan ka codsanaynaa inaanay waxba is oranin haddii ay xisbiyada isla garan waayeen ku cadgoosta fadhiga ay joogaan waxaan u soo jeedinaynaa wax walba danta qaranka ka weyn waxaanu leenahay komishinku shaqadiisu sida ogtihiin qof waliba ka warhayo waxay ku xidhan tahay kalsoonida saddexda xisbi loogu shaqeeyo iyo sharciyada yaala haddii kalsoonidii dhaawac gaaray si kasta ha ku yimaado waxa weeye waxaanu leenahay waxba yeynaan isjiijiidan waxba yaanu hadalku inaga dheeraan waxba yaanu qaranku muran intaa ka badan sii gelin waxa ugu hawl yar idinka xubnihiya madaxweynuhuna maalintii u dambeysay wixii waa sheega ugu muhiimsan haday iyagu iscasilayaan iyagii anigu sharci uma hayan buu yidhi laakiinse kamuu saarin meesha sharcinimada qodobka ah ugu horeeya haday iscasilayaan inuu diyaar u yahay oo haday iskoodu iscasilayaan waxaanu leenahay marka xubnihii baneeya waxa weeye iscasila idinku si madax banaan ma aha waxaan idinku bilaabayaan uu shalay baan ahaan jiray 2007 2008 baan iska casilay sanadingo shaqaynayay xisbiyadu ma diidin xukuumadana marka isugumaanaan dhicin si publica laakiinse waxaan uun isku garan waayay markaan aragnay in sida wax u socdaan baan isku garan waayay kadibna waan xubinnimadii iyo xilkii marka gudoomiye ku-xigeenka ahaaba waan iska casilay waxba uma noqon oo anigana waxaan sharaf iyo karaama ahayn kamaan qaadin marka waxaan leeyahay xilku wuxuu macna leeyahay oo waliba xilka ah qaadiga ama ummad la kala xukumayo ama ummad dhex loo noqonaya ummadii oo raaliya ummadii oo diyaar u ah ummadii oo ogol inaad kala xukunto ummadii oo waxa weeye aad dhex u tahay oo dhexnimadaadii aan duraynin bay ayay macna leedahay waxaan leenahay haddii alla idin eeseeyay qalad iyo sax wuxuu doonaa ku yimaado waxba ku tiigaali maayo haddii la idin eeseeyay saddexdii xisbiba ay idin eedeeyeen oo ay ka timi uun ama saddexdii xisbiba yaano labadii xisbi mucaaradku xisbigii kalena aanu waxba difaacin uu diyaar isna wahaa waxaan leeyahay saddexdii xisbi u shaqayn lahaydeen haddaydan kalsoonidooda haysan waxaan mar saddexaad ku celinayaan leeyahay waxaan idin ka codsanaynaa oo idin appeal garanaynaa inaad banaysaan si aynu xal u gaadhno oo qarankeenu hore ugu talaabsado doorashooyinkiina loo qabto marka labaad guddigii waxa weeye odayaasha ah ee isxilqaamay waxa weeye dhaxda ahaa ee go'aamada soo saaray waxaanu leenahay waa ku mahadsan yihiin go'aamada ay soo saareen warbixintii dambana waanu la socotiinay halka wax maraya wixii saxaafadda kala socdaan mooyaane wixii kalena waanu la socotiinay dadaaladoodii waxaanu leenahay sidii ay wadaan u wada sidana kalsoonida idin siinay baanu kalsoonideeda u haysataan iyagoo kaliya maahe dhammaan waxa haldoorka waxa weeye reer Soomaaliland iyo odayaasha iyo dadka faraha badan ee u guntan inay arinta wax ka qabtaan waxaanu leenahay waxa weeye darafka iyaga daan labada xisbi mucaaradka nahay oo afkoodi ku hadlayo waxa weeyaan idinkuna waa u dirantiin waa u darbantiin wixii dan iyo maslaxada iyo sidii waxa weeye hawshaas hore loogu socon lahaa marka iyagana saasaan aniga ugu bogaadin tii hore ay qabteen baan ta kalena leeyahay waxa weeye go'aankii rideen iyo meelmarintiisii baanu idinka sugaynaa sidii uga shaqayn lahaydeen waxa ka qaban kartaan awoodiina waxaan ku sadaxaynayaa madaxweynaha waan leeyahay u soo jeedinayo madaxweyne dalku adiga maanta madaxweynaha adiga jooga labana isku helimaysido hogaamiye qaran oo umadeedna inaad noqoto
iyo isku heli maysid inaad istiraado hebel ka argooso ama hiirtaanyo qof aad u qabto ama aad cid u qabto inaad istiraado ku argooso ama iska celi madaxweyne adiga arintu miiskaagay taala adiga laga sugayaa xilkii qaranku aad ku saaran yahay maalintii isugu keen dambeysay ee aanu xafiiska xisbiyada kuugu nimi saddexda xisbi ee wiigan gudihiisa maynaan wax furfuran iyo waxa dhaqaajinaysa may muuqanin waxaanu mar kale kugu celinaynaa aday hawshii ku dul taala adiga madaxweynaha adaa laga sugayaa adigaanu leenahay waxa weeye hadaad qaban weydo de waxa weeye wahanta gunteedu iyo dalkii aad madaxweynaha ka ahaydun marka isagana waxaan u soo jeedinaynaa inaanu leenahay go'aankii gudigu gaadhay aad tiri waan aqbalay fuli adaa laga sugayaa oo madaxweynaha waxaan ugu dambaysiinayaa taageerayaasha xisbiga oo aan leeyahay xisbiyada labada xisbi waxa weeye ucud iyo wadani oo aan leeyahay wada tashigii iyo waxa weeye talo ururintii iyo sidii waxa weeye xog loo ururin lahaa ee la isugu iman lahaa way socotaa wanaga xafiiskan ucud isugu nimi ee shirku ka socday waxa weeye waana sii wadaynaa waxaan leenahay taageerayaasha duqaadkiina lahaada waxa weeye wixii talayo tusmaana waa keeni kartaan xafiisyada iyo dariiqyada soo marin jirteen wixii kalena naga warsuga waxa weeye patience-kiina iyo sabirkiina iyo dulqaadkiinu habato waan ogay in badan oo tiraahda waxa weeye mucaaradku waxa weeye muxuu qaban waayay ama waxa uu soo kicin waayay ama raagsanayso oo leh ma bulshada la soo kiciyo ma kala sameeyo waxuna la inaga hayay hadii ay de inta wanaag aynu ku doonayno ku iman weydo taa doonaysay tagi laakiinse intaynu ka taxadiri karayno ka warwareegi karayno inay cunfi iyo colaad iyo waji xun inala tagto ayaynu isku daynaa inaynu uga dibdhigno wajiga wanaagsan baynu marka hore ku baadi doonaynaa waxaynu waji wanaagsan ku helayno waji xun ku baadi doonimayno waxaan leenahay idinkuna sabir iyo dulqaad yeesha suga oo waxa weeye waa idin maqanahay inta aan nala joogtana dad taladaaba qayb ka yihiin bulshada reer Soomaaliland waxaan ugu shaareynayaa ma jirto walaw xisbiyadu ay isku mari laayihiin madaxweynihii isku mari laayihiin labada xisbi inaan hawshaas dhaqaaqin oo aan wali la isla meel dhigino taanu ka soo jeedinayno appealka ay tahay haddana waxaan reer Soomaaliland ugu bashaareynaya ma jirto xagga xisbiyada mucaaradka ee afkooda ku hadlayo wax taagan oo ama nabadgelyo wax yeela ama dhibaato ah ama cunfiya ma jirto oo ay xisbiyadu isticmaalayaan haddii aan lagu kalifin waanaga isfarayna in la dulqaato bulshadana waxaanu leenahay dareenkeeda lahaada waxa weeye inta dhexda iyo inta waxa weeye danta jecel reer Soomaaliland wax leeyahay wanaag iyo samaa ka taliya aad iyo aad baa mahadsantahay way xirsi cali xaaji xasan magacaygu Cabdirashiid Cabdi Xuseen waxa ka socda Universal TV waxa sheegtay inaad u soo jeesay komishanka doorashooyinka Casila adigoo ku hadlaya afkii labada xisbi ee mucaarada u ciidiyo wadan laba xubnood ayaa ku idiga jira xubinta ucid iyo xubinta aan wali iyadu la dhahay labada xubnood ma la kulanteeno ma u soo jeesanaysa Casila waxa adigaaba sheegay waa commissionku marka commission laga yiraahdo waxay noola sameeyeen xubnaha kale oo xubno commission waxa loo diyaariyo loo dhaariyay inay dhex noqdaan marka waanu ka wada codsanay